maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dowladda shisheeye halka qorshuhu markii hore lagu waday in dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawshaasi fududeyn lahaana la geeyay magaalada Muqdisho. maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya Kabtan Cabdiwaaxid Sheekh Cumar ayaa ka mid ah dadka qaba in qorshahaasi la saxeexo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee Soomaaliya ku jirto. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay waxaana ugu horreynta weydiiyey walaaca ay qabaan waxa uu yahay. walaaca wuxuu ku saabsan yahay hawada Soomaaliya markay dadka maqlaan waa arrin xasaasiyad weyn leh. sababtuna waxay ka mid tahay astaamaha xornimada waddanka Soomaaliya. maamulka hawadeena wuxuu la mid yahay maamulka dhulka Soomaaliya oo ay maamulayso dowlad Soomaaliya. si gaar ah bal haddaad u taabto ku soo yar dhawaatid waxyaabaha walaaca gaarka inta guud waan isla wada ognahay walaaca gaarka abuuraya maxay tahay waxyaabaha walaaca goonida abuuraya waxa ka mid ah in ay jiraan dhowr wadan oo dareensan ama la socda si wanaagsan ula socda in shaqaalaha Soomaalida ee hawada maamula iyo qalabka ay isticmaalaan inuusan ahayn mid si fiican loo keergareeyay ama loo hagaajiyey ama looga shaqeeyey. marka waxaa batay dacwooyin ka imaanaya diyaaradaha Soomaaliya kormara oo ku saabsan ismaqil la'aanta iyo daciiftinimada raadiyaha aan isticmaalno oo ah raadiyihii dowladda Soomaaliya ay isticmaali jirtay oo Muqdisho laga qaaday 1991. waan gartay marka waad qiyaasi karaysaa marka adinku hadda radio technology ayaa ku jirtaan radio 25 years gaaraya da'diisa humidity-ga iyo dhibaatooyinka sababi kara in awoodiisu ay daciifto. taana waxaa sii dheer in raadiyahaasi awal Muqdisho diyaaradaha uu kala hadli jiray laakiin hadda 500 nautical miles to the south Nairobi inuu dadka kala soo hadlayo. marka sidee macquul ku noqonaysaa in diyaarad dul maraysa Hargeysa ama Boosaaso ama Muqdisho ay u maqlaan sidii diyaarad iyo dul taagan? macquul ma. marka dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan quality-geena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'iideystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii Soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an hadiina loo ogolaado. marka codsi saas ayay soo bandhigeen. marka wadamada soo bandhiga waayo wadamada Soomaaliya wadamada soo bandhigay ama codsaday in fursadaas la siiyo waxaa ka mid ah Hindiya, waxaa ka mid ah Ethiopia, waxaa ka mid ah Kenya, waxaa ka mid ah Seychelles, laakiin waxay u badan yihiin wadamada anaga dariskana la ah. marka goobta codsigaasi ka dhacay waa xagee? goobta codsigaasi ka dhacay ama lagu soo bandhigay waxa weeye Mumbai, India. waxayna dhacday 18 ilaa 19 bisha January oo meetingkaas aniga aan ka qayb galay. Soomaalida yaa metelay adiga ka sukow? Soomaalida waxaa metelayay aniga iyo directorka air navigationka Ahmed Muallim iyo yar kaloo nala socday oo asigana la taliyo u ah wasiirka oo la yiraahdo Khaliid. laakiin mar haddaad Soomaalida idinku metelayseen oo aadadna maareeyihii duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya tahay idinka miyaan ahayn cidda xaqa u leh inay arrinta Soomaaliyeed ka hadasho oo ay tiraahdo hawadayada annaga maamulanayna idinka miyaan ahayn ciddaasi? ciddaasi waa annaga waana dhahnay oo sideena looga rabay inaan ku difaacno hawada Soomaaliya ayaan ku difaacnay. waxaana u soo bandhignay adduunka in annaga aan hawadeena u dhiibanay International Civil Aviation Organization-ka oo UN-ka hoos tagta oo ah hay'ad caalamiya oo civil aviation-ka adduunka ku shaqo leh. marka waxaan u sheegnay in marnaba arrintaasi aysan ahayn arrin la aqbali karo. haddii hay-adda aan u dhiibanay inay manage garayso hawada Soomaaliya ay ku feelgarowdana jidka nidaamka ee loo maro waxay tahay inay dowladda Soomaaliya la socodsiiso in hawshii ay ku feelgarowday haddana ay doonayso inay Soomaaliya dib ugu soo celiso. annagana markaas awooddaas waan leenahay oo hawsheena waan qabsan karnaa. waan gartay marka ma cid baa jirta uga shakisan tihiin in ay arrintan dabada ka riixayso marka laga yimaado wadamadan aad sheegtay in damacu kaga jiro saad u dhigaysid inay hawada Soomaaliya maamulaan? maya laakiin waxaa jira dad aad interested ugu ah awalna ay u suurto gashay in hawada Soomaaliya ay ka soo maamulaan waddan kale weligoodna ku maamulayay la xisaabtankooduna uu yar yahay. wixii ay qabtaan oo lacaga ah ama miisaaniyad ah oo ku saabsan iyo wixii detail ah la xisaabtankooduna aad u yaraa oo doonaya inay iska sii haystaan. marka dhibka yimid ee ismaqal la'aanta ah waxay ka timid maamul xumo dhinacaas ah
oo laga hortegi karay laakiin aanan dhicin. waxaa ka mid ahoo kale in radioyaal fara badan la iibiyo, in la dhigo meelaha relay serviceka laga sameeyo oo oo qabaarka loo raba diyaaradda inay maqasho looga sii gudbiyo inay magaciisigii ay tahay dhowr meelood sida muqdisho, hargeysa iyo boosaaas oo kale. macna waxaa dhacay marka maamul xumo ku saabsan nidaamkii loo maamulayay, taasoo sababtay marka inaan gaarno xalka hadda la joogo oo ah in laga dacwoodo lana yidhaahdo war qof kale miyaanan helin haddii soomaaliya aysan qaban karin shaqadooda. marka dadkaabay ahayd mas-uuliyadda saaran inay yidhaahdaan waan qaladnay, waan ku feelgarownay, waan ka xunnahay, laakiin hadda waxaan doonaynaa soomaaliya inay nagala wareegto. saana weli maysan oran, laakiin haddii ay yidhaahdaan diyaar baan unahay. waan garta xilligan dowlad cusub baa la doorto, waan ku iman doonaa iyo dowladda cusub iyo arrintan waxay u arki doonto. haatan haddii shirkaasi dhacay maxaa ku xiga, maxaa la filan karaa in xaggee looga dhaqaaqo, maxaase shirkaas ka soo baxay go-aanka ma dambaysa? shirkaasi go-aanka ka soo baxay wuxuu ahaa in dhibka ka yimid oo isku gudbinta diyaaradaha ka baxaya soomaaliya ee hindiya galaya iyo kuwa maqalkoodu liito inaan ku dadaalno inaan isticmaalno leemanka khadadka telefoonka oo center kasta oo hawada laga maamulo telefon buu leeyahay. haddii raadiyaha ay diyaaraddu ay ismaqli waayaan in telefon aan u dirno oo aan si shalisoo kale aan la hadalno oo aan dhahno diyaarad noocaasa oo ku socota level hebel baa idiin soo socota. in magaciisigii siyaabo kala duwan oo lagula xidhiiri karo ayaga aan samaysanay sida emailka, telefoonka gacanta iyo qalabka loo yidhaahdo cell call intaaba